odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay Islaan Haashim Islaan Maxamed Islaan Cabdullaahi oo ka mid ah ismada Soomaaliyeed Mas'uud Cabdullaahi Aadan ayaa warkan noo eegaya salaadiinta uqaasha waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada ayaa maanta magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay Islaan Haashim Islaan Maxamed Islaan Cabdullaahi oo ka mid ah ismada Soomaaliyeed islaamka oo ka soo kici timid deegaanada Puntland ayaa Jubbaland u yimid si uu kulamo oo la qaato golaha dhaqanka Jubbaland iyo madaxda dowlad goboleedka Jubbaland muhiimadda safarkiisa iyo kulamada uu la gali doono ayaa isku xirka labada bulsho iyo xoojinta ilaalinta midnimada guud ahaan ummadda Soomaaliyeed qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka Jubbaland ayaa islaamka si weyn ugu soo dhaweeyay Jubbaland waxaana sheegay in uusan marti ka ahayn Jubbaland oo u yimid deegaan ka mid ah dalkiisa إسلام هاشم إسلام محمد إسلام عبد الله وحالنا هاي سودو سكل سميعة ولا لماء قلب فرنا كما فرنا دك هذه كسودو لكن أنا بنو سودوينا إسلام هاشم إسلام محمد بنو سودوينا أنا وكثر سن أو ياش لغنك وصومالية وأنا هاي نشوفه بنو سودوينا إسلام وحنا بولاجي دعمها يا كسودو بقول كسودو واحد دكتور كده ما كسودو قال سودو تاع الصومالي دول عند كده وحكم غير مجرو ولا ركيس عمرك وناجا يوش على كسودو وش صارنا وناجي كسودو يعني أنا أفتح سفيسو صومالي كيس كوكين رايح نقطة دكتور الصومالي لو كنا هل ريان كقصنيا إلا إلى علي النبي الدنيا بأمن الهستة إن لو قلت يا أمي إن بالجلال الهستة اسم كسودوان اسم كجود وحتى اسم كجود جبلان كسودوان ما نقدرت اسم بالولاي أم باسم باشني محمد وقارة ما نقدرت اسم وحلنا اسم سودوان إسلام محمد إسلام هاشم وحلنا قحنا سودوان سياسية يوحنا لسه الإسلام كيفتني مهمة أيلاد هي من مدة أمد حين برشة أوقف عقين حين يكقر قاتان ilaalinta nabadgelyada iyo wadajirka bulshada taasna aad baan uga mahadcelinaynaa waxaa kaloo halkaan aan la hilmaami karin oo la dafiri karin oo aan rabnaa inaan shacabka u sheegno xusuusinana oon u mahadcelinaynaa amniga iyo xasiloonida magaalada ka jirto iyo maamul wanaagga ka jiro magaalada maamulka amniga iyo safety-ga meesha ka jira ay noo soo xasiliyaan shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan oo amniga waa la wada leeyahay la wada dhowro amniga xilliyo doorasho iyo waxbaa lagu jiraa xilliyadaas yaan laydinkaga faa'iidaysanin amnigiina iyo danihiina yaan lagu carqaladaynin meesha idinkaa degan annagaa wada degan amniga hala wada ilaashado maan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan aad maanta ugu faraxsanahay inaan dhex joogo magaalada Kismaayo oo si diiran noogu soo dhaweeyay shacabka reer Jubbaland dowladda iyo dhammaan nabadoonnada sinada nabadoonka guud oo beesha مساكيس lagu qabto magaalada Kismaayo wuxuuna boogaadiyay nabadgelyada ka jirta magaalada Kismaayo ismadaha ogaadaano mas'uuliyadda ay hayaan inay tahay dibiya dhaqan oo shacabka ama dowladda hadda ay soo dagaalaan ku kala saaro oo meesha lagu nasan lahayo dowladdana ayada naftigeeda waa inay ogaataa ismada ay ka mudan yihiin kor iyo hoos meel walba ay tagaan waa inay ogaadaan mar walba fadlan waxaan codsanaa nin walba inuu qalbigiisu furo dagaalka la joojiyo amniga la badiyo